wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxaa kamid ah shirkii Afisiyoni oo furmay iyo mucaaradka oo shuruudo adag ku xiray dawladda federaalka Soomaaliya oo wada abaabul ka dhana madaxweyne Axmed Madoobe Kenya oo qaaday talaabooyin ay kaga argoosanayso dawladda Soomaaliya xog ku saabsan madaxweyne Farmaajo oo ballanqaad yaab leh ka helay dawladaha Shiinaha iyo Ruushka intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu doorka roona warka iyaga haatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku xasuusinaynaa inaad subscribe tiraahdo janaalka oo aad ku maasan tahay daawashadaada asxaabtaada u share gareey fiidiyoga mahadsanid shirka Afisiyoni ayaa maanta furmay iyadoo shuruudo adag lagu xiray shirka waxa maanta si rasmi ah mar kale teendhada Afisiyoni si rasmi ah uga furmay shir xasaasi ah oo ay qaadanayaan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada iyadoona labadii maalmood ee la soo dhaafay uu shirkani ahaa mid hakad uu ku jiray shirka ayaa waxa uu yahay mid hordhac u ah kulamo dhowr ah oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka isla markaana la filayay in lagu xalliyo arrimaha cakiran ee dalka ka jira haatan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ayaa wali isku marila qodobo dhowr ah oo arrimaha doorashooyinka quseeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weheliyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shirka daaha ka rogay waxaana sidoo kale shirka ku sugan madaxweynayaasha shanta ee dawlad goboleedyada dalka sida madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kale waxaa kulanka qayb ka ah oo xaadir ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa durbadiiba kulanka ku xiray qodobo adag oo shirka ay ula soo shartageen waxaa la xasuustaa in madaxweynayaashan ay qaar kamid ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle ay dood adag kala kulmeen kulamadii saacadihii la soo dhaafay ay qaateen madaxweynayaashu waxaana doodan ay ku saabsanayd in shuruudo adag madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay hordhigeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madoobe ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo aysan waxba kala hadli karin oo ay hortaagan yihiin madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug isla markaana ay shafka u dhigaynayaan wax walba oo ay keenaan dhankeeda xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadashay shirka u furmay madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada waxaana xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay inay ka go'an tahay kuna dadaalayso sidii ay u miro dhali lahaayeen kulamada wada tashiga ah ee u socda dawladda iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay rajo badan ka qabto in kulamada socda dhammaantood ay yihiin kuwo wanaagsan isla markaana ay ka filayaan in natiijooyin wax ku ool ay ka soo baxaan filayaan in si wadajir ah loo fuliyo heshiiskii 17 Sebtembar beesha caalamka ayaa iyaduna war ka soo saartay kulamada soconaya waxaana ay dhankeeda tilmaantay in loo baahan yahay in madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyadu ay ka heshiiyaan arrimaha taagan beesha caalamka warka ka soo baxay ayaa fariin loogu diray madaxda dawladda iyo maamul goboleedyada iyadoona ay sheegtay in haatan Soomaaliya looga diyaar garoobayo soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana beesha caalamku ay arintaasi ka warqabto waxaana ay muujisay rajo ah in mabaadi'da asaasiga ah ee milicsiga iyo dulqaadka iyo iscafinta ku dhisan iyo dib u heshiisiinta ay horseedi doonaan in guulo laga gaaro shirarka soconaya waxaana ay hogaamiyaasha dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda ay ugu baaqday inay ka faa'iideystaan kulamada socda isla markaana heshiis la gaadho qaramada midoobe ayaa xustay muhiimadda ay leedahay shirarka isdaba joogga ah ee madaxdu ay qaadanayaan waxaana saaxiibada beesha caalamku ay ku booriyeen in wada hadallada la sii amba qaado oo la hormariyo isla markaana ay horseedi karto inay noqoto kuwa lagu xalliyo dhammaan arrimaha khilaafaadku ay ka taagan yihiin oo dalka ay ka dhacdo doorasho wada ogola beesha caalamka ayaa sidoo kale sheegtay in heshiisyada noocani oo kale ah ay astaan u yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sidoo kale u damqashada daryeelka dadka Soomaaliyeed waxa uu muujinayaa hoggaanka danaha ummadda Soomaaliyeed in lagu dadaalo isla markaana uu noqdo dood hadiyad u noqota dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri wada hadallada haatan u socda madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada iyadoo beesha caalamku ay ka hadlaysay shuruudaha ugu adag ee shirka maanta lagu xiray ayaa waxaa kamid ah in la ballaariyo shirka ay yeelanayaan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada isla markaana laga qayb geliyo xubnaha mucaaradka ah si shirku uu noqdo
mid lagu xaliyo dhammaanba tabashooyinka jira iyo sidoo kale qodobada waxaa ka mid ahaa in laga wada hadlo arrimihii iyo shaqaqooyinkii dhacay 19 bishii Febraayo kuwaas oo lagu weeraray xubno ka tirsanaa midowga musharixiinta oo daneynayay doorashada dalka. waxaa sidoo kale qodobada ku jira in laga dood adagna laga yeesho muddaxileedka madaxda dawladda oo dhamaaday isla markaana uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qoro warqad uu ku cadeynayo in muddaxileedkiisu dhamaaday isla markaana si ku meel gaar ah xilka uu sii haynayo. sidoo kale hogaamiyaasha mucaaradka ayaa soo jeediyay in laga hadlo arrimaha amniga doorashada iyo cidda sugaysa si cadna loo qeexo in xilalka laga qaado taliyaasha ciidamada qaarkood oo ay sheegeen in ay tahay arrin loo baahan yahay in si gooni ah looga hadlo. madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ayaa haatan kuwa isku horfadhiya teendhada Afisyooni isla markaana uu yahay shirkooda kuwa soconaya lamana oga waxyaabaha ka soo bixi kara kulanka maanta amba qaadmay. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wada abaabul ka dhana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. saacadihii la soo dhaafay kulamo ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa la sheegay in si aad looga hadlay arrimo ku saabsanaa khilaaf ka dhaxeeya madaxda dawladda iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland. mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo si toos ah uga amar qaatay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin oo ah taliyaha nabad sugidda ayaa waxaa la sheegay in haatan ay dardargelinayaan kulamo muhiim ah oo Muqdisho ka socda kuwaas oo ah kacdoon ka dhan ah madaxweynaha maamulka Jubbaland isla markaana la doonayo in shacabka reer Jubbaland looga horkeeno madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland qorshayaal ay dawladda federaalka Soomaaliya rabto. wararka ayaa sheegaya in qorshaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ay wado ay u adeegsanayso dhaqaale fara badan isla markaana ay isu keenayso odayaal iyo siyaasiyiin iyo ganacsato ka tirsan maamulka Jubbaland doonayo in farta laga saaro lacag aad u fara badan. waxaana dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay la sheegay inay socdeen abaabulkan oo loo adeegsanayay ururo iyo kooxo gaar ah oo la magac baxay badbaadada Jubbaland. dawladda federaalka Soomaaliya ujeedada ay ka leedahay ayaa waxaa lagu sheegay in aysan rabin in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu talada maamulkaasi sii hayo isla markaana ay doonayso inay ka horkeento shacabka reer Jubbaland. wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in kulamadan uu wax ka wado isla markaana odayaal dhaqameedyada reer Jubbaland uu isu keenay isla markaana uu kala hadlay arrimo ku saabsan Jubbaland. waxaana kulamadan la tilmaamay inay yihiin kuwa la doonayo in lagu afgambiyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu horay uga soo horjeesatay doorashadii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaana ay goor dambe ay si ku meel gaar ah ugu aqoonsatay inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ah oo 2 sano sii haynaya jagada madaxtinimo ee maamulka Jubbaland. Kenya ayaa qaadaysa tallaabooyin ay uga aarsanayso dawladda federaalka Soomaaliya. dawladda wadanka Kenya ayaa cunaqabateyn dhowr oo la xiriirta caabuqa COVID-19 ku soo rogtay dalkeeda iyadoona si aad ay u saameysay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha wadankaasi Kenya. madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa qaaday tallaabooyin aad u adkaa oo la xiriira caabuqa COVID-19. madaxweyne Uhuru Kenyatta tallaabooyinka iyo go'aanada uu soo rogay ayaa waxa ay saameyn ba'an ku yeesheen dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha wadankaasi Kenya kuwaas oo qaarkood ganacsiyo waaweyn ku leh waxaana ay sheegeen in bando fara badan lagu soo rogay. ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa waxa ay sheegteen in saameyn xoogan ay ku yeelatay tallaabooyinka ay qaaday dawladda Kenya ee dhanka COVID-19 oo markaasi bando xoogan ay ku soo rogtay dawladda wadankaasi Kenya oo ay ku yareynayaan faafidiisa. waxaana arrintan si aad ah haatan uga cabanaya dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha wadankaasi Kenya. madaxweyne Farmaajo ayaa ballanqaad yaab leh ka helay dawladaha Ruushka iyo Shiinaha. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu heshiis rasmi ah la galay dawladaha Ruushka iyo sidoo kale Shiinaha waxaana uu heshiis rasmi ah la gaaray madaxweynuhu. heshiiskan oo ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka dalka ayaa si aad ah waxaa la tilmaamay inuu yahay mid muran xoogan u dhaliyay. warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay heshiis muhiim ah la gashay dawladaha Shiinaha iyo Ruushka. heshiiskaas oo ku qotoma dhanka awoodda ee qaramada midoobe. dawladaha Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u ballan qaaday inay ka hor istaagi doonaan qaraar kasta oo Soomaaliya ka dhana isla markaana ay u ballan qaadeen inay u fadhin doonaan qaramada midoobe wax kasta oo ka soo horjeeda dawladda Soomaaliyana ay ka hor imaanayaan. ballanqaadkan ayaa ahaa mid si aad loola yaabay isla markaana
ay dowladda federaalka Soomaaliya haatan madaxdeedu la gashay dowladaha Shiinaha iyo Ruushka oo haysta codka awoodda diidmada ah. Soomaaliya ayaa taa beddelkeeda ay Shiinaha iyaduna u ballan qaaday in ay la sameynayso iskaashi iyo fursado cusub oo wanaagsan oo dhanka tartanka gobolada ah. waxaana arrintan sidoo kale la sheegay in dowladda waddanka Mareykanku ay si aad uga carootay. dowladda Shiinaha ayaa muujisay mowqifkeeda ku aadan taageerada Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in si aad u garab taagan tahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay cadaadis saarayso cid kasta oo ka hor imaata oo ku aadan dalalka reer galbeedka. guud ahaan daawadayaal warkood kala socoteen warsida TV waa naga inta ay nabadgeliyo.